duulaanka Soomaaliya lagu soo qaaday ma ahan mid ku eg dagaalka militariga oo kaliya balse waxaa jira dagaalo kale oo ummadda ku socda kuna wajahan caqiidadeeda akhlaaqdeeda dhaqankeeda iyo dadnimadeeda duulaanadan iyaga ah ayaa waxaa dhaqaale iyo juhdi ku bixiya hay'ado iyo dawlado shisheeye kuwaas oo adeegsada dad Soomaali caado qaatayaal ah oo aan diin dad iyo dal toona u naxayn wadaadahan ay shisheeyuhu u soo xil saarteen inay afkaartooda qalloocan ku suurad xumeeyaan jihaadka ayaa waxa ugu horeeya ururka al-i'tisaam waxaana la xusuustaa in 4tii bishii May sanadkii 2012 safiirkii Mareykanka ee Kenya Michael Ramberger ay ku martiqaadeen masaajidkooda Mareykanka kadibna uu siiyay jadwalka ay shaqadoodu ku soconayso I hope that there are ways perhaps we can work together to help to advance stability in Somalia. But for example, here are some of the things that could be done. For example, we could get some of the imams and elders together. waxaan rajaynaynaa in aan helno habkii aan uga wada shaqayn lahayn caawinta iyo xasilinta Soomaaliya habkan u wada shaqayn karno tusaale ahaan waa sida tan imaamyada iyo odayaasha baan isugu yeeri karnaa markaas baad xiriir la samayn kartaan xubnihiina ku sugan Muqdisho muuqaal ahaan escape ama hab kale waa arin la hirgelin karo qodobka labaad oo aad muhiim u ah waa sidee baan u wada shaqayn karnaa aaraadiina baan u baahannahay arinta aan dib ugu soo noqonayno waa xiriirka muuqaalka video teleconference waana habka ugu sahlan ee loo samayn karo sababtoo ah way adag tahay in Soomaaliya loo safro tusaale ahaan way fududahay in koox idin kamid ah xiriir loo sameeyo sida adiga iyo qayb dhinaciina kamid ah oo lagu xiro 8 ama 10 qof oo Banaadir ku sugan ama Muqdisho ku sugan ama Islii Kenya ama meel kale 8 or 10 people in Benadir or Mogadishu and maybe in Eastleigh in Kenya or somewhere. wadaadaha ka heliyay dadkooda ayaa waxa sanad walba loo dejiyaa qorshe iyo miisaaniyad u gaar ah iyadoo loo diro waxa ay gaaladu doonayso in la suurad xumeeyo sanadkaasi tusaale ahaan shirkii ay Kenya ku iclaaminaysay duulaankeedii Soomaaliya waxa laga qayb galiyay wadaado uu ka mid yahay Sheekh Umal iyadoo ujeedadu ahayd in dadka loo muujiyo in duulaanka Kenya uu yahay wax wanaagsan oo ayba culimo garab taagan tahay wadaadahan oo u shaqeeya 2-5 ilaa 10 ayaa waxay qayb walba shisheeyaha ku aadiyeen hawl u gaar ah qaar iyaga ka mid ah waxa loo xil saaray marin habaabinta bulshada ku dhaqan gobolada wadanka halka qaarkoodna loo wakiishay inay tashwiish ku furaan Soomaalida ku dhaqan dibadda kuwaas oo laga bixiyo waa wadaadaha kharashaadka dayuuradaha ay caalamka isaga kala gooshaan Sheekh Maxamed Cabdi Umal waxa uu ka mid yahay kuwa u xil saaran wadamada qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin Soomaali badan oo garowsan in dalkooda lagu soo qaaday duulaan diineed lana qabsaday maxaa ka jira in Sheekh Umal uu fadeexad kala soo kulmay Soomaalida wadankaasi ku dhaqan ma dhabba in marar badan uu xalaaleeyay wax uu Allah Qur'aankiisa ku xarimay mase jirtaa in Umal uu marar badan ka tanasulay mabaadi hor leh oo uu horay u sanaa waxay u baahantahay marka walaalayaal masalada iyada inaan iska toosino oo dadka walaalaheena mu'miniintaana inaynu jeclaano qadiyadooduna inay ku farxiso nasrigooda libtooda guushooda barwaaqadooduna inaad ku faraxdo xumaanta soo gaadha dhibaatada ku timaada jabka ku yimaada khilaafka ku yimaada dhibaatada soo gaadhana inaad ka naxdood ka xumaato waxaad ka qaban karta ka qabato aad u ducayso واجبك واكا أما إن وناق مسلمين تنا كنحضو حمانت مسلمين تنا كفر حضو وصفاء أهل الكفر النفاق اللي يقانو ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها الله تبارك وتعالى وحولي هذي حالة حمي إذن أصيبتو ويكفر حان هذي حالة وناكسن إذن أصيبتنا ويكحمادان ويكمرقان ييهين ومنافقين تقالدا
saddexda ma aha hortoodna muslimiintu waa dagaalami jireen waxba iska celin jireen gadaashoodna way dagaalami doonaan waxba iska celin doonaan haddana kuwa aan ayagana ahayn fikirkoodana xambaarsanayn baa dagaalamaya waxna iska celinaya in qadiyada la afduubo oo la luqun jabiyana mas'ala saxsan alqaacida intayna soo bixin muslimiintii afghanistan baa dagaalamaysay ruushkii bay la dagaalameen oo ka adkaadeen alqaacidana ma jirin alqaacida soo baxday dhib badan bay soo kordhisay afkaarta qalloocsan ee xambaarsantahay darteed wixii ku abtirsaday oo afkaarteeda qaatay oo shabaab ka mid yihiinna dhib badan bay soo kordhiyeen dal muslimna mayna xoraynin dhiig muslimna mayna badbaadinin gaalna mayna ka celinin masalada ku saabsan horta dastuur waa ka alle laakiin dastuurka alle kolba intii la kari karo awooddu saamaxdo baa mukallaf lagu yahay wixii awooddu diido takaaliifta kale shareecada buu la mid yahay oo markaasi ma laasimayo maanta waxaan ogsoonnahay caalamka gaala haysata awood bay ku haystaan ilaahay baa awood leh dowlado waaweyn oo Soomaaliya qeyrkeedba ka xoog badan baan ku dhawaaqi karin shareeca islaam baan isku xukumayna waaqic yaalla in wax lagu qaybsado waa laga maarmaan ayagoon ku dhawaaqin bimujarrad dad wadaad ahaan ah ay kursiga yimaadeen shareecaba lama bedelinba baad ogtihiin waxyaalihii wixii ka dhacay soo socota laakiin waxa la og yahay in dastuurka dawladda uu dimuqraadi yahay baarlamaanna jiro waa su'aal ka mid ahayd kuwii la weydiiyey dimuqraadiyadu ka mabda waa diin gaalnimo ah لأنه هو مبدأ عقيدة دي سوت وأخلاق دي سوت ونظام كشروع دي سوت والدولة دي سوت وإلحاد دي والدين تكفق واحد والديمقراطية هذا المغش لأن الديمقراطية مع الإله هذا الديمقراطية وحل إلى هذا حكم الشعب للشعب بالإله هذا شعبك أو إسحكمه أي الإله على قوة شعب كوحو دورتا حبنها برلمان كان وحل إلى هذا قولها شرع الدجنتا حلالين iyo xaraamayn isaga sameeya shuruucdu goluhu dajiyana shacabka lagu xukumaa inaga diinteena markii la yiraahdo xalaalayn iyo xaraamayn yaa iska leh ya allah wa iska leh soma sidaas daraadeed baarlamaan wax la yiraahdo dimuqraadiyadu ka mabda dhamaystiran waa gaalnimo waxaan rumaysnahay i'tiqaadkayga intaan ku qanacsanahay waa dad muslimiin ah diinna kamayna bixin diin inta laga saaray ay ridoobeen ma ogi qadaayaadka ay ku jiraanna waa wax u qaybsama khalad aan gaarsiisnay diinka baxyi ridda gaarsiisnay inuu gaaloobayo oo murtad noqonayo diinta ka baxay waana sida daahirka quraanku muujinayo sida rabbi subhanahu wa ta'ala ayad kalaba ku yiri walaw kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliya haday ilaahi iyo nabiga iyo wixii lagu soo dajiyay rumaysan yihiin maynan awliya ka dhigteen gaalada fiirsan haday rumaysan yihiin allah rasuulkiisa iyo kitaabkii lagu soo dajiyay haday rumaysan yihiin rumaysnaan dhab ah gaala mayna awliya ka dhigteen labadaasi marka ma kulmi karaan wadaadada qaar baa tabcay inay wax u lusluusan wax u raadiyaan oo yiraahdaan maya xogaa kursi un baa hayay mooy ruux ma gaaloobin kursi doon weey sheekh kada dadka khawaarij aan noqon idoo wuxuu ku leeyahay maya meesha waxa gashay un de sidii un laysu haystay meesha la gashay mid wuxuu ku leeyahay maya waa jaahil war waxaasi wax jira ma gaala isku keentarta gaala waxayna waa argagixiso waa burladuul
waa mara ku dhag waa niman macangegiin ah waa niman balaaya ka dhacday waa niman waxa ujeedooyin kala wata innaga iyo dadkii ahlu diinka haba waxa la isugu keendarisaan caadi ahayn ninkii muslimka ee masaajidka ku jira tukanayay waaba kanba waaba xanaaqsan yahay war maxaa kugu dhacay nimankaas Soomaa nimankaas yaa waa nimanka garka dhudhuga Soomaa ikhwaan muslimiinka muslim kule ajaay waa nin la soo soofeeyay la soo diray wuxuu la dagaalamay meel uu ka dagaalamay ma yaqaan nasiibada haysata marka innaga iyo dadkii ahlu diinka ah inaan u hiilino oo inuu isgarab taagno oo wax la qabanna iskaba dhaafe meesheennu ka nacabna war dadkan aad la nacabtay la dagaalamayso waa dadkii diinta waday hadduu gaalku 100 magac u bixiyo 100 magac xaqiiqadoodu wax weeye dadkii culimada diinta waday waa magacu doon isaga ku sheego laana magacyadan xunxunkee la bixinayo horeyna way u yaqaaneen haddana way yaqaanaan magacyadanna waxa lagu siraa dadka aqli gaabka wax magaradka ah ba shaygii oo sax ah magac xun loogu sameeyaa si uu uga dido uga carro ibliis baa dhaqanka lahaa ibliis baa macsiyada markuu dadka gelinayana magac fiican buu ugu sameeyay iyo suuro fiican say u galaan wanaaga markuu dadka uga digahayana magac xun iyo suuro xun buu u muujiyaa si dadku uga carraan marka waxa way waa shaqadii ibliis inaan marka ilaahay diintiisa iyo dadkiisa isgarab taagno gaala iyo waxay watana hadaad muslim tahay wax ka galay ma jiro gaala ya adiga ma inaad cadaab la gashaa doonaysaa mise maalinta qiyaamada in lagula soo shiriyo iyaga lagula keenaa doonaysaa hadal markaad askar Amerikaan noqotaan baan su'aasha ka jawaabay askar Amerikaanati oo maxaad u dhihi weydeen askar oo Zambiyaan maxaad Mareykan ka doonteen meel maag baad leedihiin meel baad u socotaa waa isku mid inaad Zambiya ka noqoto Zambiya askarteeda inaad noqoto iyo inaad Kenya askarteeda noqoto iyo inaad Mareykan noqoto ama Ingiriis noqoto shil farqi ah su'aashu waxa weeyaan in ruux muslim ah ciidan gaalo uu raaco oo dad muslimiina uu la dagaalamo ama cadow intuu soo raaco muslimiin la dagaalamo bambanaanta misaman xukunkeedu wuxuu yahay jawaabtu waxa weeyaan inuu khaldan yahay oo dambi ku jiro wala isku waafaqsan yahay khilaafku wuxuu ka taagan yahay ma ku gaaloobayaa mise ku gaaloobi maayo arrintan ma ahan sida uu umal u sheegay murannaha kama taagna inuu diinta ka baxayo meeshii lagu arkaahina lagu dili karayo oo qofkii gaalo u soo raaca muslimiinta sida uu ka dhawaajinayo sheekh umalkii hore ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in la dagaalamo iska dhaafi meel alla meeshii lagu arkaa lagu dili karaa istiidaana la weydiin maayo dilkiis idan laga weydiinay ma jirto ilaahay baa fasaxay subxaanahu wa ta'aala in la dili karo haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamaloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sidaa markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kala loola dhaqmayo bal sida uu leeyahay Sheekh Islaam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah gaalada asliyiinta ayaga ka daran buu leeyahay gaalada gaalnimadooda asalka ayaga ka daran ahkaamtu xuduuday ka dajisayna waxa ka daran murtadiinta ahkaamta laga dajiyay ba aad uga adag ahkaamta loo dajiyay gaalka asalka inaga laakiin dhibaatooyinka Soomaalida wax weey maqaayista inaga khaldantay baa waxa kamida in la yiraahdaba Soomaaligu ma bagaaloobo waa Soomaali baa lagu leeyahay waa Soomaali sheekh oo waa in hebel oo waa Maxamed iyo Faarax waa Maxamed iyo Faarax oo Faarax ma gaaloobo biya Maxamed ajaib diintiba waxaan ka dhiganayba nasab oo kale iyo midab iyo dhalasho oo kale ma aha waa afkaar iyo mabaadi iyo aqiido iyo sulukiyaad haddaad qaadatana aad xukunka qaadan muslim haddii laga waa inaad gaaloobi oo laga bixi karo bal labada daqiiqo isku xigta laga yaabo marna inaad gaal noqon karto marna muslim noqon karto soo saas ma wax la yiraahdo ma jiro Soomaali waa Soomaali waxa way gaal waa muslim waa lay warkaasi inuu cadaado waa laga maarmaano liyahlika man halaka an bayina wa yahman hayya an bayina sheekh umalkii hore ayuu ahaa
markaan isku soo duubno su'aalihii lagu weydiiyey waddanka zambiya waxaa la dhihi karayaa waxay ahaayeen kuwo uu dhammaantood fashil kala kulmay maadaama aanu sida sharciga ahayd uga jawaabin taasna waxay keentay in ugu dambayntii lagu buuqo oo ay dadkii mustamiciinta ahaa ku oriyaan hal qodob waa jira oo la oran karo waa arin cillo ah waxa weeye qodobkaasi gaalada marka hore marka la leeyahay yaan lala degin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ana bari'un mimman aqama bayna dhahranay mushrikiin qof ku nool gaalada dhexdeeda bari baan ka ahay marka arinta la weydiiyana wuxuu ku cileeyay la tatara naaruhuma dabkooduba isuma baxo gaaliya muslim ma wada degaan marka ninkii markuu la degay gaaladii oo la deegaa noqday oo la duruuf noqday oo baasaboorkoodii qaatay oo hanti dhexdoodii ku leeyahay oo uu noqday nin Kenyaatiya Kenya wixii dhibaya marka noloshiisa iyo duruufiisa oo dhan baa ku xiran Kenya wixii dhibaya kan Mareykan jooga Mareykan wixii dhibaya ilaa hadda culimadu ay fadwoonayaan ciidanka Mareykanka waa laga mid noqon karaa oo muslimku duulaayo waliba waa laga mid noqon karaa waa yaani marka hore khadwa halkaas ku yimid in la degay gaaladii oo baasaboorkoodii iyo jinsiyadooda